Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa si cad u dafiray war ku saabsan inuu dalkiisa basaasay Mareykanka. 3 saraakiil oo sarsare ayaa sheegay inay u badan tahay in Israa'iil ay ka dambeysay 3 aaladood oo ah kuwo wax basaaso oo laga helay aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo. laakiinse warbixin laga soo saaray xafiiska Netanyahu ayaa lagu sheegay in hadalkaasi ka soo yaray saraakiisha uu yahay midaan xaqiiqda ku salaysnayn. madaxweyne Donald Trump oo ay Khamiistii shalay ahayd wariyaasha weydiiyeen warkaasi ku aadan basaasnimada lagu eedeeyay Israa'iil ayuu Trump sheegay inuusan aaminsanayn in Israa'iil ay basaasayso Mareykanka. way adag tahay inaan aamino arrintan sababtoo ah xiriirkayga ku aadan Israa'iil aad buu u wanaagsanaa ayuu yiri Trump isagoona soo xiganayay ka bixitaankii heshiiskii nuclear-ka ee Iiraan iyo go'aankii muranka badan dhaliyay ee maamulkiisu safaaradda Mareykanka uga soo raray magaalada Qudus. ma aaminsani warkaasi wax kasta waa suuragal balse anigu ma aaminsani ayuu ku soo gabagabeeyay madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump.